السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنو ونكسن داوديال ميل كستو أجوجتان كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay geeyaga Soomaaliya wararka degdega oo nidiin hayana waxa qayb ka noqon doona taliyaha militariga wadanka Djibouti oo wata diyaarad qumaati u kacda ayaa goordhow waxa uu ka digay magaalada Saylac ee gobolka Awdal wuxuuna halkaasi kula kulmay ugaaska guud ee beesha Ciise kulanka oo ilaa hadda socda ayaa diiradda lagu saaraya qodobo waaweyn oo masiirka gobolka jaangoyn doona Itoobiya iyo sidoo kale sidaas lamida dawlad deegaankuna waxay si buuxda u taageereen beesha Ciise waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda oo faraha ka baxday iyo sidoo kale Samaroonka oo qarka u saaran inay isdhibaan waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa ciidanka Samaroon oo maanta hub iyo gaadiid dagaal oo fara badan kala baxay gudaha magaalada Boorame iyagoo u jihaystay dhinaca tuulada Ceelgaal waxa laga cabsi qaba Ceelgaal intaysan gaarin in deegaanka Habaas uu dagaal ka dhaco iyana faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa Siciid Cabdullaahi Dani oo boqolaal ciidamo ah ku daabulaya magaalada Badhan iyo sidoo kale magaalada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag qodobadaas iyo waxyaabihii kale aan ugu soo kordhay ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada aragtidaadana qaybta commentiga inoogu reeb muuqaalka adaawanaysidna like saar waxaan ku bilaabayaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ayaa goordhow waxay ka degeen garoon diyaaradeed macmal ah oo ku yaala banaanka magaalada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal halkaasi waxaa la sheegay inay si buuxda u maamulayaan ciidanka beesha Ciise oo toddobaadii la soo dhaafay waxa magaalada Saylac iyo magaalada Ceelgaal galay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise gaar ahaan kuwoodii ku sugnaa magaalooyinka Diridhaba iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada diyaaradda waxaa la sheegay inuu la socday sargaal sare oo lagu magacaabay Sakariya kaasi oo ah taliyaha militariga wadanka Djibouti hadda aan idila hadlayana waxa uu kulan degdeg ah leeyahay ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed kulanka ayaa la sheegay in bahda warbaahintu ay dabajoog ka tahay iyada oo warbaahinta loo diiday inay sawirro ama muuqaalo ka duubtaan waxa hadda socda kulanka waxaa la sheegay marka laga yimaado ugaas Mustafa iyo Sakariya oo ah taliyaha militariga Djibouti in kulanka sidoo kale uu ka qayb galayo sargaal sare oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Dheere kaasi oo qaabilsan ciidanka beesha Ciise ee ku sugan Diridhabe dawlad deegaanka iyo deegaanada hoos yimaada oo ilaa dhinaca gobolka Awdal xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in kulankan diiradda lagu saarayo ku dhawaad 4 qodob oo laba ay yihiin kuwa ugu saameynta badan labada qodob ee ugu waaweyn waa arinta ciidanka iyo arinta hubka beesha Ciise ee degta gobolka Awdal ilaa iyo dalka Djibouti ayaa aaminsan in Djibouti ay jaangoyn karto in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo taa bedelkeeda si xeerka buugga Ciise loo soo bandhigo waa in Djibouti ay ogolaato inay hub iyo tababarba siiso ciidanka beesha Ciise ee ku sugan gudaha Djibouti gudaha dawlad deegaanka ilaa gobolka Awdal ee Somaliland ugaas Mustafa Maxamed oo kulanka ka qayb galayay ayaa wuxuu yiri dawladda Djibouti abaal weyn ayaan u haynaa gaar ahaan Ismaaciil Cumar Geelle waa nin qadiyada marka laga hadlayo xeerka buugga Ciise si weyn ugu dhagan waxaad ogtihiin inay jiraan kuwo ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan Boorame oo dabcan ula jeedo beesha Samaroon oo diidan in beesha Ciise ay soo bandhigto xeerka buugga Ciise oo uu ku tilmaamay haddii sidaas lagu sii adkaysto in la qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo xaaladda mugdi galin kara khubaro badan oo arrimaha la socota ayaa aaminsan in dawladda Djibouti ay xilligan faragelin toos ah ku sameynayso qadiyada la xiriirta arrimaha ku saabsan in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo laakiin macluumaadyo kale oo soo baxaya waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen faahfaahinno iyo macluumaadyo la xiriira in dawladda Djibouti ay markan door bidayso inay si hoos hub u siiso tababarna ay siiso boqolaal ciidamo ah oo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadan doonaan guluf dagaal oo lagu qaado beesha taagta daran ee Samaroonku iyagu xilligan xoog iyo xeeladba waxay ku bixinayaan sidii loo joojin lahaa in la soo bandhigo xeerka buugga Ciise taa bedelkeedana waxay door bidayaan in xeerka buugga Ciise hakad la geliyo oo la iskugu yimaado meel dhexe iyada oo laga wada hadlayo qadiyadaha taagan oo ay dad badan aaminsan yihiin inay biyo kulul ama biyo qabow ku shubi doonaan xiisadda labada dhinac hadda kulanka socda oo u dhaxeeya taliyaha militariga wadanka Djibouti iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa la filayaa in laga soo saaro laba qodob oo dabcan aan hore u sii ogeyn kuwaas oo ku saabsan in ciidanka beesha Ciise tababar la siiyo
qalab iyo dagaal iyo weliba hubna gacanta loo geliyo. haddii ay taasi dhacdana dabcan waa dharbaxo culus oo ku dhacaysa Somaliland oo xilligan arrimo kale ku mashquulsan. xiisadda dabcan u dhaxaysa beelaha ood wadaaga ah daris wadaaga ah ee Ciise iyo Gudubirse waxay gaartay halkii ugu sarreysay. haddii aad xasuusataan muuqaalo dhowr ah oo aan halkan idinkula wadaagay ayaan idiin sheegay in hadda Ciisaha iyo Gudubirsuhu halka isku hayaan ay tahay Saylac iyo Boorame, laakiin xaaladdu ay ka gudbi doonto taas oo ugu dambeyn gaartay Djibouti ilaa dowlad deegaanka Soomaalida. waxaan sidaa ku leeyahay aan dib ku xasuusiyo wixii ka dhacay tuulada Habaas, tuulada Bolol, tuulada Ceelgaal, tuulada Xariida, Lughaye, Saylac, Boorame iyo deegaanada hoos yimaada. dhammaan deegaanadaas oo isugu jira deegaano iyo degmooyin waxaa ka dhacay wax u ekaa dagaallo iyo wax u ekaa dhaqdhaqaaq ciidan oo isbarbar socda. tuulada Habaas waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskaga gubtay oo dhex maray ciidanka beesha Ciise iyo kuwa Samaroon. dhagta ayaa dhiigga loo diray beesha taagta daran ee Samaroon, waxaana la soo warinayaa in laga dilay xubno muhiim ah oo askar u badan, noloshana lagu qabtay kuwo kale. halka beesha faca weyn ee Ciise iyana laga soo warinayo in ciidamadooda dhaawacyo badan uu soo gaaray. madaxweynaha Somaliland ayaa magaalada Habaas wuxuu u diray taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug, waxaana Nimcaan loo sheegay inuu yahay wiil da'yar oo aan waxba ka ogeyn qadiyadaha Ciisaha iyo Samaroonka. ugaaska guud ee beesha Ciise oo dhowaan warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi ilaa inta beesha reesha Isxaaq iyo beesha Samaroon uu miirku u soo laabanayo oo ay ka ogolaanayaan xeerka buugga Ciise, dhagta ayaan dhiigga u dareynaa beesha taagta daran ee Samaroon iyo sidoo kale kuwa la soo halmaama. haddiise ay isku dhejiyaan oo ay qadiyadahan indhaha ka furaystaan, waxaanu qaadaynaa dagaal, taasi oo dabcan ugu dambeyn hirgashay. dagaalkana laga arkay meelo fara badan oo ka mid ah gobolka Awdal ilaa iyo xadka Awdal iyo sidoo kale dowlad deegaanka. dadka sidoo kale arrimahan isha ku haya ayaa waxay leeyihiin beelaha Ciise iyo Samaroon waa inay geed hoostii xaaladda ku dhammeeyaan. tusaale, waxa ugu weyn oo khilaafka dhaliyey heer gacan ka hadal xabad ay gaarta sheekaduna dhaliyey waxay ahayd markii beesha Ciise ay sheegtay in xeerka buugga Ciise lasoo bandhigi doono. haddaba dabcan waxaa laga yaabaa inaad dhowr jeer maqasheen xeerka buugga Ciise. xeerka buugga Ciise wuxuu yahay xeerka buugga Ciise waa midka ugu weyn oo dhaqan Soomaaliyeed ay isticmaalaan oo hadda ahaan la arki karo inuu yahay midka ugu weyn. 2024 bishii January qaramada midoobay iyo UNICEF ayaa aqoonsaday isla markaana u diiwaan geliyay in xeerka buugga Ciise uu yahay midka ugu weyn oo ay isticmaalaan ama ay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed. haddaba xeerkan waxaa ku jira deegaano ay Samaroonku leeyihiin oo ay Ciise sheeganayaan. Samaroonkuna waxay ka dagaalamayaan waa in deegaanadooda la sheego, taas oo kaliftay in mudaharaadyo bil ka hor ay ka dhacaan magaalada Boorama, 16 qof ay ku dhintaan, 22 kale ay ku dhaawacmaan, guryo la burburiyo, laamiyana ay burburaan. sidaas lamida Habaas waxaa ka dhacay dagaallo kooban, Ceelgaalna waa la isku hor fadhiyaa, Bolol iyo Xariidana waxaa la soo warinayaa in iyana xiisaduhu ay ka jiraan. dhammaan qodobadaas oo la isku dardaray ayay dad badan aaminsan yihiin inay ahaayeen waxyaabihii ugu darnaa ee dabcan xaaladda dabka ku sii shiday. waayahay qodobadeena kale ayaynu markana eegaynaa iyo waxaan fiirinayaa dhinacaas iyo magaalada Boorame. magaalada Boorame wararka laga helayo waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo magaalada Boorame ka socda iyo deegaanada hoos yimaada. dhaqdhaqaaqyadaasi waxaa la sheegay in intooda badan ay ahaayeen kuwa si weyn ay dabada uga riixaysay beesha degta gobolka Awdal ee Samaroon, waxaana ciidamo hubeysan iyo gaadiid dagaal oo fara badan la geliyay magaalada Boorame iyo deegaanada hoos yimaada. saraakiisha aan la hadalnay waxay tilmaameen qaarkood in ay si weyn ula yaaban yihiin habdhaqanka inaba aan caadi ahayn oo beesha Samaroon ah. sababta ah Samaroonku markii hore waxay yiraahdeen waxaan qaadanaynaa wada hadal, markii dambena iyaga ayaa ballanta ka baxay oo sheegay inaysan wax wada hadal ah iyo wada xaajo toona qaadanayn, taasoo dabcan loo arkay inay tahay ballan furki ugu weyn oo beesha Samaroon ay ku dhaqaaqdo, maadaama ay leeyihiin waxbaan tabanaynaa haddana wax kale ayaan doonaynaa.
samaroonku waxay dad badan aaminsan yihiin haddii xaaladdu sidan ay ku soo socoto in aysan waxba qaban karin oo ay xaaladoodu faraha ka bixi karto islamarkaana ay xaaladoodu gaari karto meel aan waxba laga qaban karin. laba sargaal oo ka tirsan beesha ciise ayaa goordhow waxay ii sheegeen in ay ka cabsi qabaan inay xaaladdu faraha ka baxdo haddii aan si degdeg ah wax looga qaban qodobada laysku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karto. wararka iyo macluumaadka kale oo aan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in labadii bilood ee lasoo dhaafay si weyn loo dareemayay dhaqdhaqaaqa ka socda xadka Jabuuti iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaasoo la sheegay in ay ahaayeen waxa ugu weyn oo beesha ciise ay ka cararaysay haddii xuduudooda laga soo tallaabo. yacni ciisuhu waxay ka hortageen duulaan weyn oo xaggooda lagu soo qaadi lahaa, taasoo dabcan ay dad badan u arkaan inay ahayd falsafadii ugu dambeysay oo ay doonayeen inay kaga hortagaan duulaan dhankooda lagu soo qaado. si walbaba ha ahaatee, dad badan oo arrimahan la socda ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in xaajada hadda halkaa ka taagan ay tahay mid sarraysa oo weliba la arki karo isku dhacyo ciidan oo waaweyn oo xaaladda dabkale ku sii shiday haddii aan si degdeg ah xaaladda loo soo faragelin. laba sargaal oo ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaa goordhow waxay ii sheegeen in ay ka warqabaan dhacdooyinada halkaa ka jira oo ay si weyn ula socdaan islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah. waxay saraakiishu sheegeen inaysan iyagu rabin xilligan daandaasi inay deegaano ciise samaroonka la weeraro ama deegaano kale oo ay dadkaasi leeyihiin la weeraro, laakiin haddii laga fursan waayo la qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo dabcan xaaladda dab kale ku sii shidi doona, kuwaasoo la sheegay in ay marba markaa ka dambeyso xaaladda gelinayaan qalalaase ay adag tahay kasoo kabashadeeda in si degdeg ah loogu degdego. waxaan la hadlay ilaa dhowr xubnood oo saraakiil ah oo ka tirsan maamulka waqooyi bari, waa maamulka andhehe Somaliland, si aan wax uga weydiiyo dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda iyo in Somaliland ay wax ka og tahay. waxayna sheegeen in ay ka warqabaan oo ay dhowaan qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah. tallaabooyinkaasi ayuuna sargaalku ku sheegay inay noqon doonaan kuwo aan la maahdin islamarkaana ficil foolxun ku abuuri doona beelaha ciise iyo samaroon haddii ay dagaalka joojin waayaan. taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaaxnuug ayaa dhowaan laga soo xigtay hadal cajiib ahaa, kaasi oo ahaa in Somaliland ay tallaabo militari oo aan caadi ahayn ka qaadi doonto ragga lagu eedeynayo in ay qalalaaso ka abuurayaan deegaanka Habaas oo ka tirsan gobolka Awdal xuduudana ku yaala. xaaladdu inkastoo deegaankaasi ay degan tahay, haddana dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa laga dareemaya oo dhinac walba ah. beelaha ciise iyo samaroonna waxaa la leeyahay waxay wadaan hub uruusi maadaama midba midka kale uu iska ilaalinayo, laakiin beesha samaroon cashir fiican ayay baratay oo ah wixii kaga dhacay aagga tuulada Habaas. dabcan cashir ayaa loogu dhigay beesha samaroon. haddana waxaa la leeyahay suldaanka guud ee beesha samaroon xaaladda dib u eegis ayuu ku sameynayaa oo wuxuu qiimeynayaa bal siday wax u dhaceen iyo sida looga hortegi karo ficilkaa la mid ah oo dabcan xaaladda dabkale ku sii shidi kara. waxay sidaas si lamida xogaha iyo wararka kale oo aan helayna ay tilmaamayaan in labadii bilood ee lasoo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada xoogan ee halkaasi ka socda oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dabkale ku sii shidi karaan. waxay wararka iyo faahfaahinta macluumaadku intaa ku darayaan in toddobaadyadii lasoo dhaafay sidoo kale la dareemay culays weyn oo beesha ciise ka imaanaya. ciise ay samaroon wararkooda intaas ayaan ku ekeenayaa. markana Siciid Cabdulaahi Deni ayaa boqolaal ciidamo ah waxa uu ku daabulaya gobolka Sanaag. reer waqooyi barina way mashquulsan yihiin. aanu garanayo reer waqooyi bari waxay ku mashquulsan yihiin, laakiin ninkii Siciid Cabdulaahi Deni ahaa wuxuu wadaa dhaqdhaqaaq inaba aan caadi ahayn. ciidankii Calmiskaad ee argagixisada la dagaalamayay ayaa laga soo raray Calmiskaad. boqolaal gaadiid ah ayaa waxa ay soo galeen gobolka Sanaag. saacad walbana waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal ay ka dhacaan. reer waqooyi bariyo waa leedii soo galay, xaaladdu faraha ay ka baxday, waa inaad kacdaan oo aad iska celisaan Siciid Cabdulaahi Deni iyo dulmiga u wado. haddiise aad isdhigataan lax walba meesha dhigtaa lagu gowracay idinka idin taala. marka waxaa jiray kaarta ay soo dejiyeen waqooyi bari oo ahaa inta Somaliland ay ku mashquulsan tahay ciise iyo samaroonka
waa in iyaga xaggooda laga soo galaa oo cashir loo dhigaa nimankan la yiraahdo Somaliland yani inta ku mashquulsan yihiin Ciise iyo Samaroonka waa in tallaabo laga qaadaa arrintiiba waxaa la sheegay waxaa ogaaday Saciid Cabdullaahi Deni ciidankiisii ku sugnaa Calmiskaad iyo deegaanada hoos yimaada ha ka soo raro magaalada ha soo geliyo xaaladdu faraha ay ka bixi rabtaa jawigu wuu qasan yahay marba marka ka dambaysa waxaa laga cabsi qabaa inay xaaladdu faraha ka baxdo haddii aan si degdeg ah xaaladda loo soo faragelin oo aan si degdeg ah wax looga qaban dad badan oo arrimahan la socdana waxay leeyihiin Saciid Cabdullaahi Deni markan dagaal buu diyaar u noqday oo ah inuu toos la dagaalamo maamulka waqooyi bari saraakiil kale waxay leeyihiin xaajadu hadday siyan ku sii socoto dabcan wax badan isbedeli kara oo sheekadu faraha ka bixi kartaa laakiin hadda markaad eegtid xaaladdu siday tahay iyo isku turtuurka jira dabcan waqooyi bari heegan kii ugu sarreeyay bay ku jiraan maadaama Saciid Cabdullaahi Deni ciidankiisii uu ka soo saaray buuraha Calmiskaad oo dabcan hadda la rabo in dabcan lagu baabi'iyo shacabka waqooyi bari ee aan waxba galabsan ee deegaanadooda ku sugan oo maamulka dhistay